dawada kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada markale barnaamijkan arrimaha siyaasadda ee garqaad midiga qodobada wararkan ku soo qaadan doonana waxa ugu waaweyn dowladda Jabuuti ayaa waxa ay jawaab ka bixisay shirkadda DP World iyo waliba arintii laga gaaray go'aanka ku aadan doodii ama maxkamadda u dhaxaysay labada dhinac gudoomiye hore gobolka banaadir duqi magaalada Muqdisho Taabid Cabdina waxa uu maanta magaalada Muqdisho ka furay xarunta xisbiga awoodda shacabka kaas oo uu isagu hogaamiyo ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho waxay sheegeen in ururka Al-Shabaab ay qayb weyn ku lahaayeen magacaabistii gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir midowga Yurubna waxa uu si adag uga hor yimid dilka ay Somaliland shalay fulisay ee ku aadanayd ilaa iyo 6 qofood iyo welinta arinta ku aadan shakhsi ahaan ee loo dilay dilkii General Qasim Suleymani qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaan daawadayaal barnaamijkeena caawo iyo caalamka ee garqadmida ku soo qaadan doona aaduna ku bilownay dowladda Jabuuti ayaa waxay si rasmi ah uga hadashay bayaan dhawaan ka soo baxay shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP World oo sheegtay inay mar kale ku guuleysteen dacwadii kala dhaxaysay dowladda Jabuuti ee qaadaysay maxkamad ku taal magaalada London dacwadan ayaana qayb ka dacwad ka horeysay oo shirkaddu u gudbisay maxkamadda dalka Britain kadib markii ay dowladda Jabuuti waxba kama jiraan ku tilmaamtay heshiis hore oo labada dhinac ay wada galeen sanadkii 2006 haddaba maamulka guud ee dekedda Jabuuti Abuukar Cumar Xadi oo maanta shir jaraa'id qabtay gudaha magaalada Jabuuti ayaa sheegay in aanu jirin haba yaraatee heshiis toos ah ay la galeen shirkadda DP World balse shirkadaas ay qayb ka ahayd maalgelinta dekedaha Jabuuti waxa uu sheegay sheegashada ku aadan ay ka guuleysteen dacwadda labada dhinac ay tahay mid waxba kama jiraan isla markaasna uusan jirin wax heshiis oo labada dhinac ba horay ugu yaalay waxa uu sheegay in maxkamadda ku taal Britain ay qaaday dacwadda labada dhinac aysan ahayn mid waafaqsan xeerka caalamiga iyo waliba xeerka heshiisyada dowladaha iyo waliba shirkadaha heerka caalami waxa uu sheegay in dowladda Jabuuti aysan marnaba aqbali doonin in lagu maqooneeyo go'aan maxkamadeed oo aan waafaqsaneyn buu yiri xeerarka caalamiga waxa uu sheegay in dacwadu gudbin doonaan buu yiri wadamada caalamka ee ku aadan shirkadda DP World iyo waliba sidoo kale inay isku dayayso inay la wareegto dekedaha dalkaasi Jabuuti shirkaddan DP World oo inta badan ah shirkad maamusha dekedaha caalamka ayaa waxa ay maamuleysay sanadooyin dekedaha ku yaala dalkaasi Jabuuti balse dalka Jabuuti gaar ahaan madaxweynaha dalkaas Ismaaciil Cumar Xasan Cumar Geelle ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay ka baxeen heshiiska ay u jireen shirkadaasi ku aadanayd maamulidda iyo waliba guud ahaanba dekedaha dalkaasi Jabuuti iyadoona ay ka mid ah dekeda Dooraale ku taalo dalkaasi Jabuuti arinta DP World ayaana waxay ku soo aadaysaa xilli shirkadaha dalkaasi ama dekedaha dalkaasi Jabuuti ay gacanta ugu jiraan shirkado Chinese kuwaas oo hadda ballaarinaya dekedaha guud ee dalkaasi ee Jabuuti dhanka kalena gudoomiye hore ee gobolka Banaadir duqi magaalada Muqdisho ahna hogaamiyaha hadda xisbiga awoodda shacabka Taabid Cabdi ayaa maanta ka furay oo khamiis ahayd magaalada Muqdisho xarunta dhexe xisbiga awoodda shacabka oo si casri ah loo qalabeeyay kadib furitaanka xarunta hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka Mudane Maxamed Cabdi oo jir jaraa'id ku qabtay gudaha xarunta dhexe ayaa si kooban wuxuu bulshada Soomaaliyeed u wadaagay aragtida ujeedka iyo himilada xisbiga awoodda shacabka wuxuuna yiri xisbiga awoodda shacabka wuxuu rumaysan yahay inay muhiim tahay in aan wax ka bedelno habfakarka dhamaanteen naga ragaadiyay nana badan ficilada qaldan iyo wax ka wada qabsi la'aanta ah ee faca iska celi kuna bedelno ficil ah faca wax la qabso iyadoo laga dhaqan gelinayo maamul dawladeed iyo waliba macaamilka bulshada dhexdeeda si aan kula duwanaansho aragtida siyaasadda fikirka iyo waliba deegaanka aysan inaga hor istaagin in aan ka wada shaqeyno danteena guud jiilka soo korayana aanu u beerno fakar ku saleysan in wada shaqeyn uu wanaag iyo waliba horumar ku gaari karo ayuu yiri Taabid Cabdi hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka ayaana waxa uu sheegay inay higsan doonaan ilaalinta jiritaanka iyo waliba madaxbannaanida qaranka Soomaaliyeed nabadda iyo waliba xasiloonida ku soo dabaalida dalkeena iyadoo loo marayo buu yiri siyaasad ku dhisan wada shaqeyn qaran gobol iyo waliba caalamkaba saddexna uu horseeday dalkeenu bulsho siyaasad iyo dhaqaale furan oo saldhig u yahay buu yiri dulqaad nabad iyo ku wada noolaanshiyo iyo waliba wax wada qabsi qaran iyo waliba mid caalamka ah inta kadib Taabid ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda kala guurka ee dalku uu ku jiray iyo halka uu u jeehin karo dalkeenu
uu ku jiro dib u soo kabashada iyo kusoo dabaalidda dowladnimada loo dhan yahay oo dhammaystiran. Arrimaha doorashada, xisbiga awoodda shacabka aragti ahaan wuxuu qabaa inay muhiim tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho sharciga waafaqsan, shacabku cod yeesho kuna salaysan nidaamka xisbiyada qaran, waqtigeedana ay ku dhacdo sida ku qeexan dastuurka dalka. sidoo kalena hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka ayaa sheegay inuusan xisbiga awoodda shacabka u taagnayn danta qof, koox iyo deegaan gaar ah, balse waa mid u taagan hirgelinta aragti cusub oo wax ku bedelno wacyigeli iyo weliba waaqiciga dalkeena iyo dalkeena uu ku hareersan yahay. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba leeyahay xisbiga awoodda shacabka maaha mid u taagan dan qof, koox iyo weliba deegaan gaar ah, balse waa mid u taagan hirgelinta aragti cusub oo aan wax uga bedelno wacyiga iyo weliba waaqica dalkeena iyo dalkeena iyo weliba dadkeena ku hareersan, xalna uu heli karno cabsida iyo weliba rajaxumada ka dhalatay nabadgelyada darida iyo weliba duruufaha nololeed ee ummadeenu daashada. ugu dambeyn, hogaamiyaha ayaa wuxuu uu tacsi u diray eheladii iyo weliba dadkii waxyeelada kasoo gaartay qaraxii 28 bishii December ee sanadkii tagay ka dhacay case control afgooye ee magaalada Muqdisho, kaasoo khasaaro ba'an geystay. wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay gacanta isqabsadaan si looga hortago buu yiri cadowga ummadda. dhanka kalena, qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Banaadir ayaa sheegay magacaabista gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan ay ku lahaayeen ururka Al-Shabaab. barnaamij maanta laga baahiyay laanta afka Soomaaliga codka Mareykanka ayaa wareysi la yeelatay qaar ka mid ah ganacsatada. waxay ku sheegeen in loo yeeray ganacsatada ayna tageen deegaan ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose, laguna amray inay la shaqeeyaan gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir. wareysiga la yeeshay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi ayuu ku sheegay in uu magacaabay gudoomiyaha rugta ganacsiga qaranka Maxamuud Cabdullaahi Gabayre. sidoo kalena gudoomiyaha rugta ganacsiga Gabayre ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee VO-da inuu isagu magacaabay gudoomiyaha cusub iyo weliba xubnaha kale. xilka gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir ayaa muddo 3 sano ah banaanaa kadib markii uu geeriyooday gudoomiyihii hore Cabdirashiid Ilqayd, ganacsataduna ay ku heshiin waayeen ciddii bedeli lahayd. mid ka mid ah ganacsatada gobolka Banaadir ayaana sheegay in ay walwal weyn ka qabaan awoodda ururka Al-Shabaab ay ku dhex leeyihiin gobolka Banaadir, gaar ahaana dhinaca ganacsiga, oo uu sheegay inay si awood ugu dhex leeyihiin uguna milmeen. waxa uuna ka deeriyey aragtida ku aadan iyo weliba amniga iyo wada shaqeynta gudoomiyaha cusub iyo weliba ganacsatada kale ee gobolka Banaadir. midowga Yurub waxa uu si adag uga hor yimid xukun dil oo shalay ay fulisay xukuumadda Soomaaliland hogaamiye Muuse Biixi Cabdi. Nicholas Perles Martins, safiirka midowga Yurub oo qaabilsan Soomaaliya, ayaa war ka soo saaray xukunadii dilka ahaa ee Soomaaliland ku fulisay 6 maxbuus oo u xirnaa xabsiga weyn ee Mandera loo yaqaano. Nicholas ayaana sheegay midowga Yurub oo si adag uga soo horjeeda xukunada dilka ee qisaasta, kaas oo lagu fuliyo dadka geysta dilka lagu heshiiyey in loo dilo dambiilaha. safiirka ayaa arrimahaasi kaga hadlay qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Twitter-ka, kaasoo uu dhignaa sidan: amniga doorashooyinka iyo deyn cafinta sharciga lagu dhaqmo horumarka dhammaanteen waana ognahay tirada dhibaatooyinkaasi si loo afjaro. wuxuu intaasi ku daray safiirka midowga Yurub wuxuu meel adag ka taagan yahay oo uu kasoo horjeedaa mabda ahaanba qisaasta mar walba. xukuumadda Soomaaliland hogaamiye Muuse Biixi ayaa shalay xukuno dil toogasho ku fulisay 6 maxbuus oo sheegtay inay hore u geysteen dilal kala duwan, isla markaasna ay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho isla shalayna lagu qisaasay magaalada Hargeysa. ugu dambeyntiina, wararka caalamka, saraakiil kooban oo Mareykan ayaa diiradda ugu weyneed saaray Iiraan si la mid ah sida xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, sida ay qoreen ku sharaxeen wariyaasha BBC-da ee Bariga Dhexe. horaantii bishii Janaayo, Mareykanka wuxuu duqeyn ka dhacday magaalada Baghdad ku dilay Qaasim Suleymaani oo ahaa jarnaalka ugu awoodda badnaa militariga dalkaasi Iiraan. horaantii 2016, Mike Pompeo oo markaas ahaa xildhibaanka golaha wakiilada Mareykanka u mataliyay degmo ka tirsan gobolka Kansas ayaa ka tanaasulay codsiga dalku-galka uu ku doonayay inuu ugu safro wadanka Iiraan. warqadiisa codsiga viisaha wuxuu si toos ah ugu diray hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Khamenei. isaga iyo 2 xildhibaan oo ay aqalka ka wada tirsanaayeen ayaa gawaari muraayado madow ku tegay safaaradda Pakistan ay ku leedahay Washington, halkaas ay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ku leedahay xafiis wakiil uga ah
danaha diblomaasiyadeed ee Mareykanka maadaama uusan xiriir rasmi ah ka dhexeynin Tehran iyo Washington. ujeedooyinka ay lahaayeen raggaasi ka tirsanaa golaha wakiilada waxay ahayd kuwo aada u qoto dheer oo ay ku hanweynayeen, waxayna rajeynayeen inay Tehran tagaan si ay u kormeeraan doorashada baarlamaanka oo xilligaasi dhaceysay, inay booqdaan warshadaha lagu bacrimiyo nukliyeerka, inay kulamo soo yeeshaan madaxda sare ee Iiraan, inay soo booqdaan maxaabiista Mareykanka iyo weliba inay sharciyad ka soo helaan barnaamijka sameynta gantaalada ee dalkaasi iyo weliba arrimo kale oo ku aadan. hase ahaatee raggan ma aysan ku guuleysanin inay dowladda Mareykanka ku qanciyaan safarkooda, iska badaa inay Iiraan tagaan, laakiin Bomb wuxuu diray fariin cad oo ahayd inuu Iiraan ku yiri isha ayaan idinkugu hayn doonaa. hal sano kadib Bomb wuxuu ku guuleystay doorkii uu ka ciyaarayay siyaasadda, si dhaqso ahna wuxuu ku biiray saraakiisha sare ee Mareykanka, wuxuuna shaqo ka helay maamulka madaxweyne Trump isagoona noqday madaxa sirdoonka ee Mareykanka. sarkaal reer Iiraan ayaa si kaftan u sheegay inay wanaagsanaan lahayd in Mark Bomb loo ogolaado fiisaha, wuxuuna yiri waxaan Tehran ku heesan lahayn agaasimaha CIA. inta lagu guda jiray 6 sano ee Bomb uu ka tirsanaa aqalka wakiilada wuxuu ku howlanaa hal arrin oo ahayd inuu ka salgaaro weerarkii 2012 lagu qaaday xarunta qunsuliyadda Mareykanka ee magaaladaasi Benghazi, Libya, kaasoo lagu dilay safiirkii Mareykanka Christopher Steve. wuxuuna ka mid ahaa siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee ka horkacay dacwadii loo haystay musharaxii xilka madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga oo horey u ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee Hillary Clinton, taasoo lagu eedeeyay inay dadaal u sameyn weysay badbaadinta safiirka iyo 3 kale oo saraakiil Mareykan ah oo weerarkaasi lagu dilay. laakiin wuxuu sidoo kale ishu ku hayay ciidamada gaarka ah ee ilaalada jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan ee loo yaqaano. ciidamadaas oo Bomb ku tuhunsanaa inay ku lug lahaayeen weerarkii safaaradda Mareykanka, waxaana madax u ahaa Qaasim Suleymaani oo ahaa sarkaalkii hadda la dilay. maadaama uu xubin joogto ka ah guddiga dhinaca sirdoonka aqalka wakiilada, Bomb wuxuu mar kale sirdoonka Mareykanka u baaqi jiray inay u hoos u eegaan ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan iyo weliba Jenaraal Qaasim Suleymaani. wuxuu muddo sanadaha si shakhsiyan diiradda u saarayay dhaqdhaqaaqyada Suleymaani, sidaa daraaddeed markii ay keentay fursadda xadida lagu iibin karo Suleymaani, Bomb wuxuu ka mid ahaa dadkii madaxweyne Trump kula taliyay in laga faa'iideysto, iyadoo xitaa la ogaa in tallaabadaasi ay horseedi karto dagaal iyo inay dunidu ka abuurmaan unugyo argagixiso oo salka ku haya Iiraan. walaaca ku saabsan in Iiraan ay maleeshiyaadka Iiraan ay argagixisada isku bedelaan wuxuu dilka Suleymaani ka hor istaagay labadii madaxweyne ee horey u soo maray Mareykanka, Barack Obama iyo W. Bush. go-aankii lagu bartilmaamay jarnaalka reer Iiraan wuxuu ahaa mid laba waji u leh Bomb. ka koowaad oo ah in laga hortago weerar ka mid ah qunsuliyadda Benghazi oo loo geystay safaaradda Mareykanka ee Baghdad. ka labaadna waa inuu argoostay ciidamadii oo uu ciil u qabay xilligii uu ka tirsanaa dugsiga militariga ee Mareykanka. xilligaasi wuxuu Bomb ku jiray tababar intii u dhaxeysay 1982 waxaana kacsanaa xiisad ay ku lug lahaayeen Iiraan iyo weliba xoogga ay taageerto ee Xisbullah oo ka socday dalkaasi Lubnaan. dagaalkii qaboobaa ee dunida weli wuu socday, sidaa awgeedna waxaa Bomb loo diray dalka Jarmalka si uu halkaasi uga soo shaqeeyo isagoo askar ah military. waqtigaasi 241 askar oo ka tirsan Mareyniska Mareykanka ayaa ku dhimatay weerar lagu qaaday safaaradda Mareykanku ku lahaa magaalada Beirut, qaar kalena waa la afduubtay. halistii midowga Sofiyeeti way jirtay markaasi, laakiin Bomb waa nin daayar ahaa, wuxuuna khatarta ugu weyn u arkay inay Iiraan iyo weliba xoogagaasi ay taageerto. dib haddaan usoo laabano xaaladda hadda jirta oo 35 sano kadib ah, Mareykanku wuxuu khasaarihii ugu weynaa u geystay halistii Iiraan sida lagu yiri warbixinta. in Iiraan la dilo Qaasim Suleymaani ayaa ugu daran in lagu burburiyo nukliyeerka ama ciidamada badda oo dhan, ayuu yiri Buried oo intaasi kusii daray. ninkan wuxuu ahaa qofka ugu muhiimsan ee laga dili karay Ayatullahi. gargaalkan wuxuu horay dhowr jeer Bomb sharaxaad ka siiyey habka ay u shaqeeyaan ciidamada ilaalada ee kacaanka ee dalkaasi Iiraan. in meesha laga saaro Suleymaani waxay xukuumadda Baghdad u sahashay inay fursad u hesho sidii ay u baabi'in lahayd sameynta iyo weliba galaanka Iiraan ku leedahay dalkaas. waxayna tallaabadaas xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka siisay 2 guulood oo kala ah dhinaca diblomaasiyadeed iyo weliba midda militariga. hase ahaatee Bomb howshiisu kuma eeka dhinaca arrimaha dibadda oo keliya, sida uu sheegay nin horey xulafo dhow ula ahaa.
Stephen Bannon oo ah ninkii ka dambeeyay guushii Trump uu kusoo hoogiyay doorashadii madaxtinimada ee 2016 horeyna la taliyo uga soo ahaa aqalka cad ayaa sheegay in Bob uu dasha ka maamulo wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka iyo waaxda sirdoonka ee CIA sidoo kalena uu la taliyo ka yahay amniga qaranka ee guud ee dalkaasi Mareykanka. Madaxweyne Trump wuxuu Bob ula sheekaystaa si uusan ula sheekaysanin baa jiray dhammaan wasiiradiisa kale, waana laba nin oo inta badan si aad ah isku aaminsan marka ay timaado arrimaha doorashooyinka iyo weliba marka ay timaado arrimaha bariga dhexe oo aad looga dambeeyo Bob. intaas ayaanu kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.